السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا أقوى وذاك عشركي كوبات سيدي بلانتوها إكسلكا waxaan caawa baranaynaa marka ugu horeyso sida jaamacadaha mas'uulada loogu diyaariyay natiijadooda sidaas darteed marka koowaad waxaan maxaa la yiraahdaa aad sameynaysaa page-ka noo share gareeya YouTube channel-kana subscribe ku qabta comment ku qabta maadaama mustaqbalka ama casharada xiga oo dhan aan ku post gareyn doono maxaa la yiraahdaa channel-ka aqoon wadaag halkaas noo subscribe gareeya fadlan halkan kala socda marka koobaad ardayda waxaan soo qaadanay ilaa 15 arday ayaan diyaarinay halkan magacaan jirmaha sida runta laakiin si tusaale ahaan ayaan idinku soo diyaariyay halkan maadooyinkii baa ku qoran English, Maths, Biology iyo Physics baa ku qoran kadib mid kasta natiijada intuu ka keenay ardayda halkan ku qoran totalkan halkan ka bilaabeynaa sida loo shaqeeyo isugeynta ama wadarta guud ee ardayda ayaan ku arki doonaa hadii la yiraahdo marka koobaad waxaan gasal kooma equal waxaas iyo aad ma aqoonsanayo waxaan qoranaa hadaan ku darin equal to double click yaan nidaamka kadib si totalka noogu shaqeeyo ama wadarta guud 14 ayaan soo wada dooranaa inta ayaan leenahay kadib halkaas wuxuu noogu shaqeeyay ardaygan Maxamed Wuuled isugeyntiisii oo dhan ayuu noogu shaqeeyay ka dhigan tahay 373 ayuu keenay si inta kale oo noogu shaqeeyo uma baahnin inaan equal to same aan idhaahno doorano intaan mar kale noo baahno sababtoo already formulaha ayaan shaqeynay ama qaacidadii halkan aan ku soo shaqeynay ayuu wada garanay Excel sidaas darteed halkaas aan imaanaynaa markii calaamadda isku talaab ay u ekaato ayaan hoos u soo jiideynaa wadarta guud ayuu noo wada shaqeynayaa ee ardayda ayuu noo wada shaqeynayaa kadib saas totalka ugu shaqeeyay bay ka dhigan tahay average ama celceliska ardayda waxa loo shaqeynay equal to baan leenahay average yaan qoraynaa double click yaan average kan leenahay kadib laba siba oo shaqeyn karana ama totalkan aan click dhahayna kadib inta 10 meesha yaal 14 baan kan yaal 4 aan u qaybinaa oo inta ayaan leenahay marka calaamadii saas yaan iyadana u soo jeedinaa halkaas aan imaanaa ama bas waxaan sameyn kareynaa oo taas ahayn waxaan sameyn kareynaa iyadana equal to yaan leenahay equal to average yaan leenahay average kan qorayna kadib 14 kaliya soo soo jeedina inta ayaan leenahay tan ayaana ka fudud sida caadiga kadib halkan aan tagnaa hoos yaan sida ugu soo jeedinaa average-kii ama celceliskiisaas ayuu noogu shaqeeyay systemkeena grade-ka ama sida u kala sareeyaan ardaydu inaan tan kala horeysiinaa malaha la qaatay oo grade-ka rankiga ka soo miso waa iska caadi equal to baan leenahay kan grade-ka markaan shaqeynayno waxaan ku shaqeynaynaa if ayaan adeegsanaynaa double click ayaan leenahay haddii grade-kan maxaa la dhahdaa average-kaasi baan leenahay maxaa la dhahdaa labada seel halkaas ay tagaan mar walba in muhiim ah inaad garato weeyaan G2 you taagan G2 waa taas tugaas halkaas kaga imanayaan iyo average-kaas inuu yaala ay ka weyn yahay baan leenahay 9 hadii uu ka weyn yahay double quotation baan leenahay no c ayaan leenahay kadib if baan koomahan dhiganaa if baan hadana leenahay haddii 70 ama equal maxaa la dhahdaa G mar walba G ayaan la ilaawin haddii ay ka weyn tahay grade maxaa la dhahdaa average-kaas haddii uu ka weyn yahay 9 data haddii uu ka weyn yahay waxaan leenahay nooga dhig b noo geli baan leenahay ama ardayga b noo keeno dib koomaan leenahay if ayaan hadana leenahay double click ayaan leenahay G2 haddii ay ka weyn tahay 60 wixii ka sareeyo waxaan leenahay nooga dhig baan leenahay c nooga dhig ayaan leenahay kadib koomaan leenahay if ayaan leenahay G haddii ay ka weyn tahay G2 haddii ay ka weyn tahay konton ama 55 D noo sii baan leenahay ardaygaas kadib wixii inta ka baxsan oo dhan
f noosi baan leenahay f uma baahno xarafka ugu dambeeya f2 koomahan baad dhigaysaa double quotation gaa gelinaysaa f taa dhex gelinaysaa kadib inta wax if ee meesha taala ayaa tirsanaynaa si aan bracketka usoo xidhno 1 2 3 4 if ayaa taala marka bracketka 4 jeer waan xidhno 1 2 3 4 inta ayaan leenahay ardayga koobaad waa ka noo shaqeeyay kana saas darteed uma baahnin inaan iyadana sidoo kale formula kale aan shaqeyno dib u soo bilowno calaamadda yareed baan tagaynaa hoos ayaan u soo jeedaynaa sidaas ayuu noogu shaqeynayaa sidoo kale sarreeyay abcd u keeneen rankiga ama kaalintooda markaan shaqeynayna equal to baan leenahay rank iyaan qoraynaa rankidan ka dhex dooranayna rank iyaan leenahay rank laba double click leenahay kadib laba sibon ku shaqeynaa ama totalkan ku shaqeynaa soo qaadana ama average imika average sida u kala sareeyaan ayaan qaadanaa iyaan leenahay g2 waan qaadanaa ugu sareeyo haddana g2 dan ka soo bilaabnaa hoos iyaan soo jiideynaa kadib waxaan taabanaynaa f4 ayaan taabanaynaa enter ayaan leenahay sida u kala sareeyaan iyo noo soo qaadaya marka ardaydii sida u kala sareeyay noo soo qaaday soo maxaa la yiraahdaa sida nidaamsan oo noogu soo saaro halkaas data ayaan tageynaa data markaan tagno kadib waxaan imanaynaa halka resource ku qoran tahay a to z na magacaanta sida u kala hoose nambarada sida u kala sareeyaan iyaga dhigayaan leenahay kadib saas iyo nooga soo dhigaya sida ardaydu kala sareeyeen 1 ilaa iyo 15 ardaygan ayaa ugu hooseeyay ka dhigan tahay grade ahaan ardaygaas ayaa ugu hooseeyay ka dhigan tahay keene 76.25 ardayga keene ayaa ugu hooseeyay ka dhigan tahay ardayda oo 15aad baxay xagga waa kasii keene dhankan kalena 15aad iyo baxay ka dhigan tahay daawashadooda ku maasantiin sida xasuusin mar kale page-ka share noo dhaha channelka YouTube-kana subscribe-ka noo saara comment-na ka bixiyo waad maasantiin aqoon wadaag halkaan nagala socdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.